afar iyo toban sano oo ciidanka Itoobiya ay ku sugnaayeen degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay ayaa la sheegay in maantadan ay isaga hololeen halkaas. Ciidan ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la sheegay inay la wareegeen amniga iyo guud ahaan gacan ku haynta degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay. Culayska ka haysta Itoobiya gudaha dalkeeda iyo dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya ayaa la sheegay in sabab ay u tahay in ciidanka Itoobiya ee Soomaaliya jooga qaarkood ay ka baxaan deegaano ka tirsan gobolka Bay. sanadkii 2013 ciidanka Itoobiya ayaa soo galay degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay, waxayna Buur-Hakaba ay ka mid ahayd 4 degmo oo ka tirsan gobolka Bay, kuwaas oo kala ah Buur-Hakaba, Baydhabo, Qansax Dheere iyo Dinsoor oo ciidanka Itoobiya ay la wareegeen. 14 sanadood oo ay ku sugnaayeen ciidanka Itoobiya waxaa la sheegay in saldhigyadii iyo talisadii ay ku lahaayeen degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay ay isaga baxeen, waxaana la sheegay in ciidanka Itoobiyaanka ah si gaar ah ay uga tirsanaayeen howlgalka Midowga Afrika. Itoobiya waxaa la sheegay in ciidankeeda sidoo kale ay kala baxayso deegaano ka tirsan gobolada Bakool iyo Bay, kuwaas oo la sheegay in 3 degmo oo hor leh ee ciidankeeda ay kala baxayaan. isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsiin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga. waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga. waxaa la sheegay in ciidanka Itoobiya ee ka baxay gobolka Bay si gaar ah Buur-Hakaba ay u jiheysteen dhanka Itoobiya, halkan oo dagaalo culus maalmihii la soo dhaafay ka socdeen deegaano ka tirsan gobolka Bay iyo weliba deegaano kale ka tirsan gobolka Bakool. waxaa jooga degmooyinkooda waaweyn ciidamo Itoobiyaan ah oo 12 sanadood ka hor soo galay, hase yeeshee waxaa la sheegay in Itoobiya ay go'aansatay in ciidamadeeda qaarkood ay kala baxdo magaalooyin waaweyn oo ka tirsan gobolada Bay, Bakool, Gedo. wixii warar ay soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan.